عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي وطن waxayd la wadaagaynaa maanta meel deeqna loo siiyay maadaama oo dirwalanahay oo la dhahay ku kifaaxa kadib wixii ka yimid baan idin la wadaagaynaa barasho wanaagsan haddaanu nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee joogta Fontana gaar ahaan Cargo Solution Abduhab Balidha I've been driving truck driver 5 years drive great tracker 5 سنة أيوة truck driver yahay Soomaali meel kasta joogto qashin bay la joogtaa wala isla weeyeen balaayga waxa meesha yaala ilaahay baa ku dhaarin waa ujeedaa dhinac kalena waa ku qabanaynaa waa ujeedaa waa contender weyn oo loo kareeyay oo loogu talagalay inay ku kifaaxaan masaajid baa xitaa ugu dhex yaala kadibna ay nadiifiyaan meeshii waa taas nin walba candhuufadiisa iyo qashinkiisa ma qaadayo meeshan garaabo iyo qashin bay ku cuneen saas ay u eg tahay kuwaas la leeyahay dawladda noqon dadka maslahan weeyeen oo dadka ugu qashisan adduunweynaha meel kasta joogaan Soomaali waa noocaas wajigooda runta ku ah nimankaas hadda lacag badan bay sameeyaan waa truck driver ana ka dhabanay waa kuwaas qashinkoodii bay maalin walba halka kaga tagaan dadku kale gareenka confuse bay ka qaadeen maraykan qashinka waxa loogu talagalay qofku inuu trash ku qaado oo meel ku rido laakiin de Soomaali waa noocaas weeyaan meeshan hindi baa company-gan iskale waa la dhahaa وارد بدن كلية si kasta uu dabcayno meesha ugu nadiifiyo laakiin waa Soomaali weeyaan Soomaali waa kuwaas dadka joogto waa noocaas weeyaan lacag bas ka qaadanayaan qashinkooda barkanayaan wala ka tahay suuliyada ka daran suuliyada ma utasna maybe suuliyada geeymayno inta saabu filan dadka aanadii dawladda laga rabaa inay dhistaan waxba ku heshiinay hoyga ay ku noolaayeen ba noocana kuwaas Soomaali markasta joogto siyaasi baa jirin siyaasiyiinta bil akhlaaq wadad isla weyn umada Ilaahay iskala weyn haddana aan waxba ahayn meel kasta joogaan waxaad ka garanaysaa qashinkaas Mareykan qof walba trash wuxuu ku ridaa u kala tusay caagaga lagu ridaa qashin caagaga lagu ridaa laakiin kuma ridayaan waa Soomaali weeyaan ماشي فلسطين حلاوة دب ماشي كل جرابين يفقيين واحد صوت راجع ويوضعن كملوا وشقايا العشاء دوك كسمية سنة وعايز كسمية وحول سمية استوديو شاور روح والبا أو كملوا ذا سمية لكن دي النظافة بنتشرين Soomaali دي وقواس مال والبا كان ده اللي يراد هذا نظيفنا يا مركز Soomaali مركز تشوفته ونعس واسد دولة لقى طبعا